rabnaa si xasilooni ku jirto oo qolqal siyaasadeed aan dalka iyo dadka la gelinin oo beesha caalamkana aan lagu murjinin waxyaabaha ay naga caawinayso in iyada laftirkeeda loogu baaqo markasta wax aan munaasab ahayn waxaan leenahay aan kulligeen maca guddoonkeena maca mudanayaasha 93 ah inta miirka noo soo wada noqdo arintan aan ku tilmaanay sharci darrada waa qabnaa waana la taaganahay waqti munaasabana maba aysan imaanin saas daraadeed waxaa loo baahan yahay in lagu dhiirado in la cadeeyo inaysan sharci ahayn mar haddaysan sharci ahayn waxaan gudanaynaa wixii kaloo noo yaala haddii aan ka gaarsiin karno inkastoo baarlamaanka waqtigiisa gabaabsi yahay dadkana cibaado iyo dana gaar ah ay kala aadi rabaan mar dhow sharciga inay waafajiso oo guddoonkiina ka dhaadhiciso baarlamaankana ay keento inay u taala laakiin annagu waxaan leenahay mooshinkan sharci ma waxaan cadaynaynaa annaga iyo xukuumadda wada hadal aan gelayna ma jirto wax naga dhaxeeyo mala isku shaqo ma nihin intaas hadalka muhiimadiisii intaasaan ula jeednay ugu dambayntii waxaan soo jeedinaynaa horta ummadda Soomaaliyeed inay isdejiso waxa kale oo soo jeedinaynaa guddoonka baarlamaanka gari laba nin kama wada qosliso waxa kale oo soo jeedinaynaa qofka hadduusan dhihin hebel ala gardaran oo kan gacanta saaro isaga isku dilay dadka baarlamaanka maanta hadii uu khilaaf ka dhex yimaado ama baarlamaanka shirarkiisa uu qabsan waayo baarlamaanka waajibaadkii iyo shuruucdii wixii u dhinaa uu dhameystiran waayo mas'uuliyaddeeda waxa qaadaya guddoonka baarlamaanka